maamulka degmada Garadaga way weheliyaan cuqaasha iyo waayeelka degmada Garadaga ayaa hambalyeeyay barasaabka cusub ee maalmo ka hor loo soo magacaabay gobolka Sanaaga injineer Maxamed Cilmi waxayna sidoo kale sagootiyeen barasaabkii hore ee gobolka Sanaaga injineer Axmed Cismaan Xasan iyagoo maamulka iyo cuqaashani hadalkooda sii watana waxay bogaadin hawada u mariyeen madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoona ku bogaadiyay isku shaadhaynta hufan ee uu maalmihii la soo dhaafay ku sameeyay golihiisa wasiirada iyo barasaabada gobolada dalka iyo xubnaha kale ee dawladda si furan ugu hambalyeynayna marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay wax qabadka iyo hawlaha cusub ee hadeeraad gashay barasaab iyo wasiir iyo qaab kasta ay tahay waa kaaga mahadnaqaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kale oo si dhaba u soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ama barasaabka degmada ee cusub ee gobolka ee u soo dooray Maxamed Cilmi Xuseen waanu soo dhaweynaynaa waxaanu joognaa degmadii Garadag oo gobolkii ugu koonay waa degmadii ugu koonaysay Garadag baanu ka bilownay soo dhaweynta soo dhawow waa gobolkuna xagga kale laga sii xigaa soo dhawow maamul iyo madax iyo cuqaal iyo waxgarad iyo dhammaanba bulshada ku nool waxay ku leedahay soo dhawow isku shaandhayntii madaxweynuhu sameeyay dhinacyada badan lahayd mas'uuliyiintu magacaabay isaga ugu horeyn horta waa ku taageerayna waxaan ku leenahay waad asiibtay madaxweyne xilalka aad magacawday waad asiibtay annaguna degmahaan iyo maamul ahaan iyo cuqaal ahaanba waa taageeray waxaanu si gaar ah u samaynaynaa wasiirada wasiirka caafimaadka iyo wasiirka diinta iyo waqaafta baanu si gaar ah u salaamaynaa sidoo kale waxaanu salaan gaar ah iyo soo dhaweyn u diraynaa barasaabka cusub ee gobolka Sanaag loo soo magacaabay Maxamed Cilmi Xuseen taageero soo dhaweyn iyo sagootin madaxweynaha qaranka waxaanu ku taageersanahay isbedelka uu ku sameeyay golihiisa wasiirada iyo barasaabadii iyo dhammaan dawladda oo dhan waan ku taageersanahay waayo raggii hore shaqeynayay la bedelay rag bay ahaayeen soo qadanka soo qabtay waanu ducaynaynaa wixii xilkii ay qabateen iyo wixii ay dalka u qabateen wanaag ilaahay ahayd ka jasaaysiiyaan leeyahay waa wasiiradii hore barasaabada la bedelay kuwa dambe la magacaabay waxaan leeyahay dalku wuxuu u baahan yahay isbedel idinkana xilka la idin dhibay Allah idin fududeeyo waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiirka maxaan ku dhahday diinta iyo awqaafta Sheekh Albani oo dhaweynta iyo hambalyeynta magacaabista sameeyay sunnada madaxweynuhu waa ugu mahadsan yahay waxaan soo dhaweynaynaa magacaabista wasiirka caafimaadka Xasan Gaafadhi waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka diinta iyo awqaafta waxaan kaloo soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Cilmi Xuseen waxaan halkan maanta ku suguteynaa barasaabkii gobolka Sanaag injineer Axmed Xasan Cismaan waxaan leenahay barasaab taariikhda ku xusi doonta shaqadii wanaagsaneyd ee aad ka soo qabatay gobolka aad iyo aad baad noo shaqaysay gobolka oo dhan baad aad uga shaqaysay taariikhda ku qortay insha Allah halka qaranka oo meerto waxaan ku rajaynaynaa inaad meel ka wanaagsan gaadho iyo sugootida gudoomiyihii Axmed Cismaan injineer Axmed Cismaan waxaan leenahay mudane madaxweyne aad iyo aad ugu mahadsan tahay isku shaandhaynta iyo isku bedelka aad samaysay saaraguba sheegay gaar ahaan wasiirka diinta iyo waqaafta iyo wasiirka caafimaadka gudoomiyaha gobolka Sanaag baan si gaar ah u soo dhaweynaynaa ugu hambalyeynaa ula shaqaynaynaa waxaan isleeyahay waa xilligii ku habboonayd buu yimi oo Allah ku soo beegay insha Allah waan gudoomiye aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa waxaanu aad uga mahadnaqaynaa magacaabista isku shaandhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu sameeyay halkan waxaanu dhammaanba wada salaamaynaa oo si kulli xilka horeeyna wasi suguteena kuwa cusubna waa soo dhaweynaa gaar ahaan wasiirka caafimaadka wasiirka waqaafta iyo diinta xafladan oo daran gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag Maxamed Cilmi Xuseen soo dhawow gudoomiyihii horena waan si suguteeyaa xafladda tan aan halkan ku hayno ujeedadu waxa weeye waa hambalyeyn iyo soo dhaweyn aan soo dhaweynayno dhammaanba madaxda
madaxweynuhu ku soo saaray xil wareejintiisii isbeddelkiisii ee u dhashay degmada Garadag sida wasiirada caafimaadka iyo awqaafta iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Cilmi Xuseen waxaanu leenahay dhammaanba madaxweyne waada siibtay iyadoo markii hore xilku nagu yaraa waad noo kordhisay adigu waad mahadsantahay madaxweyne sidaa noogu soo kordhi annaguna codkaan ku kordhin doonaa mid la waxaan raacinayaa barasaabka waxaan leeyahay inaadan waxaad ku soo beegantay gobolkaaga hawl badan oo ragii xagga galbeed ka yimi ay khaatiis ka taageen in kasta rag wanaagsan ahaayeen oo ay aad u shaqeeyeen sida injineerka kale haddana waqtigii loo baahnaa baa tii maxamedow waxaanu ka filaynaa inaad istaba raaciso inta yareed maxamed gumburi telefishinka bulsho Garadag.